iyadoo weli uu soconayo kormeerka laga wacyigelinayo bulshada gobolka Xaysimo xanuunka adduunka faraha baan ku haya caalamka ee coronavirus ayaa wajigiisa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanaya ka bilaabeen degmada Caruule ee ka tirsan gobolka Xaysimo. wafdigan uu hogaaminayo isduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Xaysimo iyo xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha ku nool degmada Caruule oo harkacayaan waxyaha caafimaadka ee degmada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ay isugu yimaadeen xarunta MCH ee degmada Caruule iyadoona halkaas ay ugu sharaxeen bahda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda warfaafinta habka laga hortagayo xanuunkan. maanta sidaad weydeen basaaka aroortii hore waxaan ka soo baxnay magaalada Tale oo aroortii hore aan ku qabanay ololihii cudurka coronavirus-ka oo aan ugu talagalay dhammaan gobolka Xaysimo deegaamadiisa iyo gobolka aan ka fulino. ilaahay baa mahad galabta waxaan ku sugannahay magaalada Caruule. magaalada Caruule waa magaalooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in xoog la saaro oo ku xiran tahay Taleexna waa degmo ka tirsan. waxaan kula la qaadanay dhakhaatiirtii caafimaadka dhakhtarkaas Caruule. waxaan isla garanay in ay degmada haddii ilaahay yiraahdo magaalada Caruule ay ka wacyigeliyaan ayaguna intii karaamkooda bulshada halkan ku suganna waxaan u sheegnay in sida babaha lagu hortagi karo iyo sababaha cudurkan ku imaan karo. sidoo kale waxaan guddoonsiinaynaa taydii loogu talagalay in ay jeermiska faraha ka disho. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo markasta ku heelan sidii gobolada dhan ee Soomaaliland loo gaarsiin lahaa ololahan isla markaana cudurkan dalka looga yareyn lahaa oo uu sayno soo badan ilaahay baa hayee. waxaan doonaynaa dhammaan bulshada reer Caruule inay isgaarsiiso fariintan caafimaad aan idinka wadno wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. waxaan hayay wacyigelinteena umaanta inaan ku qabtay xarunteena caafimaadka anagoo awal baan ku hiri jirnay in aan awal wacyigelin oo qaban jirnay imika wacyigelintan xanuunka waxaan doonaynaa inaan qabano usbuuca dhexdiisa balse agaasimaha ayaa bayna soo gaaray aad muhiim hayay agaasimaha shaqaaka oo wacyigelin iyo hay'atan tiimkiisa la socdo wacyigelinta ka fiican inoo siiyay waan u qaadanay ma sha Allah ilaahay inoo siyaadiyo waxa wacyigelinta bulshadeeda aad ayaan ku qabananaa adeegyada ma sha Allah ونوي بعدين دانو نايدش عرولي dadkii yani wasaaradda caafimaadka ka socday wacyigelinta annaguna hooyooyin kibaano nahay waanu qaadanay sidoo kale waxyaabaha noo sheegay si badan waa noo dadaali doonaa ma sha Allah. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. aad bay mahadsanyihiin guddiga wacyigelinta ka hortagga corona ee Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland noo soo dirtay iyo dhammaan bahda telefishinka qaranka aad iyo aad baan anagu horey uga digtoonay haddana wada digtoonahay bulshaduna waa bulsho u diyaar ah inay ka hortagto. ilaah baa dawadiisa loo ilaahayna ka hayee cudurkan lagana diyaar garoobo ka daba tag male ka hortag buu leeyahay. marka aad iyo aad bay mahadsanyihiin. intaasi kadib waxaa loo qaybiyey bulshada reer Caruule agabkii laga hortagi lahaa xanuunkan.